السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إلهو نغدق kuwa hanuunsan dadkana hanuuniya dhammaan dadka barnaamijka gufaaco ka dhagaysanaya CKMS 102.7 FM radio Borame kana daawanaya Somali Canadian TV. barnaamijka gufaaco maanta waxa marti noogu ah wasiir ku-xigeenka batroolka iyo tamarta Cabdiwahaab Cabdi Cumar Calanuug oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Awdal. dadka barnaamijka dhagaysanaya waxaa hadlay habeen dhaweyd ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xamse. haddaba hadalkiisii oo meel walba gaadhay waxaanu wasiirka weydiinaynaa bal hadalkaas in badan dadku waxaa laga yaabaa inay si kale u fahmaan isagoo maalin dhaweydna uu la kulmay odayadii ka soo jeeday beelaha Gadabuursi iyo beelaha Ciise ee u jooga in gobolkan laga shaqeeyo sidii maamul u heli lahaa. bari dhaweydna aad ogeyn shir uu qabtay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh in nin walba gobolkiisa uu hadlo oo la joojiyo laanka. maxaa keenay waqtigan isaga ah in uu ra'iisul wasaaruhu yidhaa dadka gobolka Awdal ee u halgamaya midnimada ummadda Soomaaliyeed inuu yidhaa waxaanu ka rabnaa in ay walaalada Somaliland la fadhiistaan oo iyagoo midaysan noo yimaadaan. sidaad u aragtaa arrintaa mudane wasiir kusoo dhawow barnaamijka gufaaca radio Borame Somali Canadian TV anigoo tafatiraha xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن حامد سلطان على علمي واد mahadsantahay inaad igu marti qaaday barnaamijkaagan oo ah barnaamijyada anaadka ugu taxanahay ee ka baxa radio Borama iyo Somali Canadian TV. su-aasha jawaabteeda haddaan u guda galo sida aad ogsoon tahay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya toddobaad ka hor mudane Xamse Cabdi Barre wuxuu la kulmay odayaal ka socday gobolka Awdal. waxaa ka horeeyay shir kale oo uu nala galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo iyadana maaragtay looga hadlayay arrimaha ku saabsan gobolka Waqooyi ama wixii la oran jiray dhulka Somaliland. madaxweynuhu ahdaaftiisu way cadaayeen waana waajib dastuuri ah oo aan laga tilaabsan karin oo ah qof walba mas'uul ah u dhaartay in dhulka Soomaaliya aan la kala jari karin. midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa muqadas. sidaas daraadeed mas'uulna kuma dhiiran karo inuu yiraahdo qolo gooni goosada ah loo daba fariista arrimaha gobolada waqooyi guud ahaan gaar ahaan ama gobolkaas maaragtay Awdal. sidaas daraadeed hadalka ra-iisul wasaaraha qalad waa loo fahmi karaa laakiin xaqiiqatan sidaas ma ahayn. qalad ma su-aasha la weydiiyena ma ahayn maaragtay su-aal ku qasbaysa ra-iisul wasaaruhu inuu yiraahdo ha loo daba fariista qolo infisaaliyiin ah maya. hadalka ra-iisul wasaaruhu wuu caddaa horena wuu cadeeyey umana maleynayo dee ra-iisul wasaare isagaaba u dhaartay maaragtay inuu ilaaliyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. si la mid ah madaxweynahana waa aniga kuu sheegay arrintaas waa ka muqadas waa arrin dastuuri ah dhulka Soomaaliya inaan la kala jari karin. goboladaas waqooyina waxay ka mid yihiin dhulweynaha Soomaaliya gaar ahaan gobolkeena. ra-iisul wasaaruhu wuxuu qabtay waan ognahay walaalayaal toddobaad horteed buu la kulmay odayaal ka socday gobolka uu kala hadlay gobolkanna inuu isaga iskii u istaago uu wax qabsado oo maaragtay budgetka Soomaali weyn laga qaado uu qaybtiisa helo. waxay u baahan tahay rag iyo dumar u kaca. waxay u baahan tahay dad soo jeeda. uma baahna dad hadalka loo kala bedela ama maaragtay si xun wax loogu kala fasiro. marka hadalka uu caddaa farqiga u dhaxeeya Awdal State iyo gobolka Awdalna waa farqi aad u weyn. marka ra-iisul wasaaraha su-aasha la weydiiyey uu ka jawaabay aad bay u cadeed mana ahan hadalkan in loo ta'wiiliyo meel uunan lahayn. uma maleynayo ra-iisul wasaaraha inuu
inuu ogolaan doono in maaragtay qola gooni goosada in loo daba fariisto arrimaha gobolka awdal. Maya, 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 cidna lagalama gorgortamayo muqadisnimada dhulka soomaaliyeed guud ahaan, min looya cadde ilaa iyo meesha ugu dambeysa ee maaragtay min raas kamboni ilaa raas caseer ilaa lowga, cidna marti looguma noqonayo ilaalintiisa. mas-uul walbana wuxuu u dhaartaa dee in la ilaaliyo muqadisnimada dhulkaas. sidaas daraaddeed gobolka awdal wuxuu u baahan yahay dad soo jeeda. gobolka awdal wuxuu u baahan yahay dad ka fikira arrimihiisa. gobolka awdal wuxuu leeyahay 20 xildhibaan. 20kaas xildhibaan ayaa siyaasiyan ka mas-uula. sidaas daraaddeed gobolkaas wax badan uu u baahan yahay baa jira. uma baahna maaragtay in lagu mashquulo hadalka jawaabtii uu bixiyay ra-iisul wasaaraha oo aada u caddeed, very clear. jawaabta ra-iisul wasaaraha waxba kama qaldanayn walaalayaal. waxa uu ka jawaabayna waa magaca awdal state la yiraahdo. waxa aan annaga ka shaqeynaynana waa waxa la yiraahdo gobolka awdal iyo midnimada, ilaalinta muqadisnimada midnimada dhulka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. qabaa'ilka degan waa albaabka koowaad ee difaaca midnimada dhulweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. wayna ku mahadsan yihiin xaqiiqatan. waana dad aada maaragtay qiimo u leh dadka alla ku abuura deegaankaas. waana dadka maanta iska diidan in qayb ka mida baddoodii la bixiyo. waa dadka iska diidan in la kala jarjaro dhulkan. uma maleynayo ra-iisul wasaaraha inuu intaa ilowsan yahay, xaasha. marka waad mahadsantahay. jawaabtu waxaan u maleyn inay caddahay. waad mahadsantihiin.